بسم الله الرحمن الرحيم sida la socotaanba waxaa soo baxay warbixin ay soo wada diyaariyeen hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo dawladda Puntland oo ku saabsanayd in wax laga ogaado abaarta ka jirta Puntland. warbixinta markay soo baxday waxaa soo baxday in xaaladda abaartu ay ku sii siqayso meel khatar ah, haddana ay jiraan dad badan oo ay saameysay. waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno bulshada caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed iyo in kasta oo cid kasta oo gargaar ka fidin jirtay ummadda reer Puntland inaan maanta la socodsiino xaaladda abaarta Puntland meesha marayso. warbixintaas waxaa ka soo baxay inay jiraan xaalado khatar ah iyo kuwo meel khatar sii maraya oo laba heer kala jooga oo ah safiir iyo extremely ay marayaan. waxaa jira dad gaaraya 345,000 oo qoys oo abaartu saameysay. barakacayaashii u dambeysay waxaa ku soo biiray dad gaaraya 87,000 oo qoys ayaa hadda bishaan u dambeysay ay saameysay, oo waxay isugu jiraan dad ka hayaamay guryahoodii, dad xoolihii ka dhammaadeen, dad hadda xaaladoodu meel khatara maraysa oo ay ka dhaxashay maogtahay xaaladda abaartu meesha marayso. maanta waxaa dhacay shir uu madaxweynuhu halkan isugu yeeray hay'adaha caalamiga ah oo ay ka soo qayb galeen oo la isku wareysanayay xaaladda abaarta oo loogu diyaar garoobayo sidii loogu jawaabi lahaa xaaladda abaarta. waxaana la isla qaatay in xaaladda abaartu meel xun marayso, sidii loo wajihi lahaa arrintaasna loo istaago. waxaana soo deynaynaa maantay abiil ku socota bulshada caalamka iyo bulshada Soomaaliyeedba si arrintaa loogu diyaar garoobo. arrintaas maanta ayay soo baxaysaa, madaxweynaha ayaana ku saxiixan ay soo baxday. xaaladda abaartuna waxay maraysaa meel khatar ah, waxaana riboodku sheegayaa bisha ku xigta in xaaladdu ka sii darayso, xooluhu ay sii dhammaanayaan, biyuhu ay yaraanayaan, cuntadu ay yaraanayso. sidaa daraaddeedna waxaa laga codsanayaa cid kastoo arrintan khusayso inay si dhaqso uga jawaabto, hadday ahaan lahay bulshada caalamka iyo bulshada reer Puntlandba, kooda diaspora oo bannaanka jooga iyo kii gudaha joogaba. sidaas lamida waxaa dhici doona shir weyn oo arrintaas abaaraha loogu gurmanayo oo isku tashiya oo reer Puntland dhici doona bisha July 4. shirkii maantana wuxuu ku soo dhammaaday in loo wada istaago loona diyaar garoobo khatarta abaartu leedahay. aad u mahadsantihiin.